السلام عليكم أصحابتا qiimaha badan ee ku xiran channelka soo dhawaada maanta waxaan doonaynaa in la wadaagno xanuunkan loo yaqaan COVID-19 sidii looga taxadari lahaa bulsho badan oo inaga kamid ah ayaa xanuunka u dhimatay qaar badanna waxay u jiifaan maanta isbitaalada marka xanuunkani wax dawaa ma leh wuxuu leeyahay ka hortag in laga hortago ka hortagiisuna waxa weeye qofku inuu maydho gacmihiisa oo inta badan uu ku maydho saabuun iyo biyo oo xidho face mask afka marka uu adkaysto afkiisa iyo inuu ka dheeraado meelaha bulshada isugu timaado inta ay taxadar ama ka hortag u ah xanuunkan waxaan doonaynaa inaan la wadaagno follow yar ama qaabkii loo xiran lahaa face mask hadal badan hama buuxiye intro yar kadib aan isku soo noqono biidin qaabkan aad aragtaan aan u xiranahay face mask qaabkan ayaa loo xiranayaa qaabka ugu fiican ee hay'adda caafimaadka adduunka amaantay waa qaabkan waxaad aragtaan xaggan inuu ka xiran yahay xagganna ka xiran yahay wax naqasaan oo soo gudbi karin oo qaabka ugu fiican waa qaabka hadayna ka sameeyno arrinkan 10 yar baratiisa qaabka loo xiran yahay horta marka hore mask waa caynkan qaabkan qofku markuu soo iibsado waa sidan waxa laga guntayaa dacalkan marka laga gunto halka dibadda u baxsan gudaha ayaa la soo gelinayaa dacalka kalena sidoo kale laga guntayaa dhinaceeda kale iyadana gudaha la soo gelinayaa qaabka ayaa loo marka sida ayaad ku xiranaysaa wax naqas oo ku soo gudbay ma jirto xagganna uu ka xiran yahay xagganna uu ka xiran yahay oo meel uu ka daloolo ma jirto xagga sarana sidoo kale iyadana uu ka xiran yahay oo saas ugu dhigsan yahay xagga hoosena sidoo kale qaabka khaldan ee badanaa loo isticmaalo face mask qofku markuu soo iibsado waa sidan qaabkaas waa qalad waxaad aragtaan in laba dhinacba ka daloolo una wax ka celinayn marka naqaskii uu soo gudbayo adiguna aad u gudbin kartay bulshadii marka waxaan jeclaysanay walaalaha maadaama channelka waxyaalaha faa'iidada leh aan ugu soo gudbino inay ka faa'iideystaan oo arrinka ay ka taxadaraan qaabka ay u safe gareyn lahaayeen naftooda iyo kuwa walaalaha kalaba marka maanta laga bilaabo sida u xidho sidii hore aad u xidhan jirtayna jooji maadaama ay khalad tahay ayna waxbana ka difaacayn waxaana ka codsanaynaa walaalaha kale u sii share gare oo sii gaarsii qofkii aad gaarsiisay faa'iidadan asagana wuxuu ka helayaa ajar waxaanad ku saaciday si naftiisa u safe gareyn lahaa videogan haddaad ka heshayna waxaad ugu caawisaa like waxay gaarsiinaysaa dad fara badan si ay u gaari lahayd oo uga faa'iideysan lahaayeen sidoo kalena nagu caawi subscribe-ka haddaad horey noola jeegtayna waad mahadsan tahay haddii iminka nagu soo biirtayna welcome baan ku leenahay waan soo dhawaynaynaa channelku waa channelkiini idinku inii haya faa'iidada iyo waxyaalaha inuu soo gudbinayo mar walba la socdo waxaan jecelnahay channelku inuu noqdo channel faa'iido leh oo dadka wax ka faa'iidaan wixii fikradaad haysina waxaad nagula wadaagtaa xagga hoose commentiga insha Allah waxayna kaga tagayaa bi amaanillah intaan ku kulmi doono video